dalkeena amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudda ha laga soo galo ama dawladda ha lagu yimaade dalkeena amnigiis waa lagu soo duulay amnigiis dalkeenu meel xun buu marayaa inaanu marka labada hay-adood wada shaqeeyaan muhim waayo waxaa la diidan yahay oo hadda la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray wadooyinka in la qarxiyaa la gaaro dalka hore markiisaa la diidan yahay waddaa la dhisayaa oo hadda wadooyinkaan dhisanayna injineeradaanu keenay baa la qarxinayaa waxna loo dhigayaa iyagina la dilayaa waxaa la diidan yahay ummadda tan soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay oo lugaheeda ku istaagto marka amniga waxaa naga saaran xil weyn baa naga saaran hay-adda socdaalka dalka dadka soo gelaya inay kontaroosho boliiskuna amniga gudaha iyo iyagu gacan siinayo ay wada shaqeeyaan aada iyo aad bay muhiim tahay dalka kan annaga iska leh amnigiisana annakuna saaran yahay waxaanu gaarnay hadda qorsheynay hogaamada taliyuhu iska magacaabi jiray hogaan hebel taliyaa loo magacaabay imtixaanaa loo gelaya annaga imtixaanaan dejinay nin allaale ninkii doono boliiso wax isku ogow imtixaankaad gelaysaa imtixaankaas ninkii gala oo weliba annaka aanaan qaadane hay-ado badana hay-ado badanay qaadayaan ilaa 5 hay-adood oo kale ayaa imtixaanka dejinaya oo qaadaya annagu magacyadaanu geynaynaa waxay ka mid tahay reformka si qofka meesha loo dhiibaya uu yahay qof ka bixi kara xagga ammaanada iyo xagga aqoonta labadaba reformkay ka mid tahay marka waxaa loo sameynayaa ama qorshaha hadda idinka aad taliyaha hogaanka hay-adda muxuu ahaa socdaalka iyo jinsiyaduhu diyaarinaya qorshaha u diyaarinayo waa qorshe xisaabtan waay qorshe dadaan qorshe lahayn oo iska socda waktigeedii waa la dhaafay hadda waxaa leenu joognaa wakti la xisaabtamo wakti hanti ahaan shaqo ahaan reformka waxaa ka mid ah annaka saldhig walba qofka ku qoran waktiguu yimi iyo waktiguu ka baxay in loo shaqeeyo dowladda boliisku ka shaqeeyo waktiyadii loogu talagalay intii loogu talagalay inuu shaqeeyo oo la ogaado nin walba meeshii uu joogay waktigii loogu talagalay inuu shaqeeyo reformkaas waa reform dhib badan wax kasta oo aada isbedel ku samaysana waxaad kala kulmaysaa dhibaato muxuu ahaa dad bay danihiisa ka hor imaaneysaa dadkaasaa qaylinaya dadkaasaa muxuu ahaa waxay barteen oo weligood wadeen bay rabaan inay weli kusii socdaan marka waxaa la rabaa mas-uuliyiintu adkaysi inay ulahaadaan waxaa ka imaanaya reactionkaas oo aan rabin horumarkaa in la gaaro aan rabin waddo in la sameeyo aan rabin in la toosiyo maamulka iyo maareynta shaqada